dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ugu dambeyn la ogaaday inay ku lug leedahay heshiis beenaadkii dhowaan Itoobiya iyo Somaliland kala saxiixdeen. Hay'adda la socodka xasaradaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ ayaa warbixin ay qortay ku sheegtay in mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay si hoose uga cabanayaan Imaaraadka Carabta iyagoo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin heshiiskii Itoobiya iyo Somaliland. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in aragti taas lamida ay qabaan diblomaasiyiinta adduunka ee ku foogan arrimaha Soomaaliya. ICJ ayaa dhanka kale dowladda federaalka ku ammaantay inay aad isku xakamaysay welina xeerinayso inaysan wax tallaaba qaadin kadib go'aankii lagu celiyey diyaaraddii Itoobiya ee wafdiga u wada Hargeysa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan meel fagaaraha ka sheegay in sababta ay u hiilayeen safiirka Itoobiya ciidamada iyo diyaaradaha Ethiopian Airlines ay tahay dhowrista xiriirka derisnimo iyo inaan dib loo soo faagin cadaawaddii taariikhiga ahayd. Hay'adda xasaradaha adduunka ayaa qirtay in Soomaaliya ay leedahay sarreynta diblomaasiyadda adduunka ayna sidoo kale caalamka ku qancisay in Itoobiya ay ka galdaran tahay. warbixinta ayaa lagu sheegay in markii Abiy Ahmed uu xilka yimid si weyn ugu ololeeyay shacabkiisu inay helaan bad isagoo jeediyey khudbad arrintaa ku saabsan bishii Oktoobar sanadkii 2023 hadalkaas oo loo fasirtay inuu duulaan ku yahay Eritrea balse oo markii dambe caddeeyey inuusan sidaas ula jeedin. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xiriir dhow la lahayd dowladda Imaaraadka Carabta tan iyo markii xukunku yimid ayaa waxa soo ifbaxaya inay wax ka qooshay heshiis beenaadka Itoobiya ee la gashay Somaliland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegaya in hadda ka fikirayso tallaabada ku aadan oo ay ka qaadayso Imaaraadka Carabta. dhowaan ayay ahayd markii magaalada Muqdisho lagu diray saraakiishii ugu sarreysay Imaaraadka Carabta ee qaabilsanaa galka amniga Soomaaliya. Imaaraadka iyo dowladaha kale Carbeed ayaa la aaminsan yahay inay si weyn uga soo horjeedaan inay dib u dhisato dowladnimada Soomaaliya, waana sababta markastoo ay dhaqdhaqaaq samaysa Soomaaliya ay u soo qoonayaan ama ay u soo abaabulayaan xagaldaacooyin lagu curyaminayo dowladnimada dalkeena. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa heshiis cusub kala saxiixday kaas oo ku saabsan shidaalka, saaminta iyo qodista, iyadoo heshiiskan uu sii xoojinayo xiriirka labada dowladood iyo heshiiskii difaac ahaa ee dhowaan qalinka lagu duugay. heshiiska cusub ayaa beegsanaya kaydka shidaalka ee aagga dhaqaalaha badda oo aan wax horumarina lagu samayn tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991. heshiiska magaalada Istanbul waxaa ku saxiixay wasiirada Soomaaliya iyo Turkiga u qaabilsan arrimaha shidaalka iyo macdinta. tallaabadan ayaa imaanaysa kadib heshiiskii dhowaan Somaliland la gashay Itoobiya oo loogu oggolaaday marinbadeed iyo saldhig ciidan, waxaana si weyn arrintan ugu hor yimid dowladda Soomaaliya. iyadoo laga jawaabayo tallaabadan waxaa Ankara heshiis badeed oo difaac la gashay dowladda Soomaaliya kaas oo qaadan doona 10 sano, wuxuuna Turkigu waajib u yeelanayaa ka difaaca badda Soomaaliya, argagixisada, burcadbadeedda iyo halis kastoo dibadeed oo ku xadgudbaysa madax bannaanida Soomaaliya. heshiiskan taariikhiga ah ayay sidoo kale Turkigu ku kordhi doonaan khayraadka badda Soomaaliya ee aagga dhaqaalaha gaarka ah. ciidamada badda Turkiga ayaa hore u joogay ama ka howlgalaya xeebaha Soomaaliya iyo gacanka cadmeed iyagoo qayb ka ah xoogagga la dagaalanka burcadbadeedda ee qaramada midoobay kuwaas oo la aasaasay 2009. Turkiga ayaa khibrad fog u leh saaminta iyo soo saarista arrimaha shidaalka iyo macdinta, waxaana la aaminsan yahay in tallaabadaani horumar ay u horseedi karto dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.